Kelyuhu waa laba xubnood oo ka mid ah jirka kuwaas oo ku yaala qaybta hoose ee feedhaha iyo labada dhinac ee lafdhabarta. Waxay qabtaan shaqooyin kala duwan oo laga maarmaan u ah nolosha. Tan ugu muhiimsan waxay tahay waxay shaandheeyaan waxyaabaha wasakhda ah, biyaha xad dhaafka ah, iyo waxyaabaha kale aan nadiif ahayn ee dhiigga ku jira. Waxyaabaha wasakhda ah waxa lagu kaydiyaa kaada haysta kadibna waxa laga saaraa jirka iyadoo kaadi ah. Waxa kale oo kelyuhu soo dheelitiran pH-ka, saarista cusbada ama milixda iyo heerka potassium-ta ee jirka. waxa kale ay soo saaraan hormoono xakameeya dhiigkarka iyo soo saaridda unugyada dhiigga cascas. Kelyahaaga ayaa weliba ku shaqo leh dardargelinta fitamiin D-ga oo ka caawinaya in dheefshiidku uu nuugo calcium-ta, dhisidda lafaha iyo joogteynta shaqada murqaha. Joogteynta caafimaadka kelyaha ayaa muhiim u ah caafimaadka guud. Jimicsiga joogteynta jimicsiga waxay muhiim u tahay caafimaadka iyo badqabka kelyaha. waxay yareyn kartaa halista cudurrada kelyaha ee daba dheeraada. Waxay kale ay hoos u dhigi kartaa dhiigkarka waxaana kor u qaadi kartaa caafimaadka wadnaha kuwaas oo labaduba muhiim u ah ka hortagga dhaawaca kelyaha. Jimicsigu maaha inaad gasho ordo dhaadheer, waxa kaaga filan socodka, kaxaynta baaskeelka iyo jimicsiga fudud si sare loogu qaado caafimaadka kelyaha. Xakamaynta sonkorta dhiigga. Dadka qaba sonkorta ama macaanka ama xaalado sababi kara sonkorta dhiigga oo sarreysa ayaa dhaawici kara kelyaha. Marka unugyada jirku aysan isticmaali karin glucose ama sonkorta dhiigga, kelyaha waxa lagu qasbaa inay si adag u shaqeeyaan si ay u shaandheeyaan dhiigga. Sanado badan oo dadaal ah, tan waxay ku horseedi kartaa waxyeelo nafta halis ku ah waqti dheer. Si kastaba ha noqotee, haddii aad xakameyn karto sonkorta dhiigga, waxaad yareyn doontaa halista dhaawaca ee kelyaha. Cadaadiska dhiigga. Cadaadiska dhiigga ee sarreeya wuxuu sababi karaa dhaawac soo gaadha kelyaha. haddii dhiigkarku qofka haleelo iyadoo ay jiraan xaalado kale oo caafimaad darro sida sankarowga ama macaanka, wadna xanuunka ama kolestaroolka, saameynta uu ku yeelan karo jirka waxay noqon kartaa mid weyn. Qaab nololeedka iyo isbedelada cuntada ayaa laga yaabaa inay ka caawiyaan yareynta cadaadiska dhiigga. Miisaanka iyo cuntada. Dadka miisaankoodu sarreeyo ama kuwa aad u cayilan ama u buuran waxay halis ugu jiraan dhowr xaaladood oo caafimaad oo dhaawici kara kelyaha. Kuwaas waxaa ka mid ah cudurrada macaanka, wadnaha iyo kelyaha. Cunto caafimaad leh oo ay ku yar yihiin soodhiyam, hilib la warshadeeyo iyo cuntooyinka kale ee dhaawici kara kelyaha waxay gacan ka geysan karaan yareynta khataraha iyo dhaawaca soo gaadha kelyaha. Waxaad xoogga saartaa cunista cuntooyinka soodhiyamta ay ku yar tahay sida khudradda cagaaran, kalluunka iyo midhaha oo dhan. Cabidda biyaha waa arrin mudnaan dheeri ah leh, waana talooyin xasaasi ah inaad cabto 8 koob oo biyo maalintii. laakiin waa yool wanaagsan si sax ah maxaa yeelay waxay kugu dhiirigelinaysaa inaad ka badbaado biyo yaraanta jirka. Qaadashada joogtada ah ee biyuhu waxay caafimaad u leeyihiin kelyaha. Biyuhu waxay caawiyaan in laga nadiifiyo soodhiyamta iyo sunta kelyaha. Waxay kale oo ay yareeyaan halista cudurrada kelyaha ee daba dheeraada. Dadka hore u lahaa dhagaxaanta kelyaha waa inay cabbaan biyo badan si looga hortago kaydinta dhagaxaanta kelyaha ee mustaqbalka. Ha cabbi sigaar. Sigaar cabiddu waxay dhaawacdaa xididdada dhiigga ee jirka. Tani waxay keentaa gaabis ku yimaada qulqulka dhiigga ee dhammaan unugyada jirka iyo kelyaha. Sigaar cabiddu waxay sidoo kale sare u qaadaa khataraha kansarka kelyaha, balse joojinta cabidda sigaarku waxay hoos u dhigtaa khataraha kor ku xusan. Cunista kiniinada. Haddii aad si joogto ah u qaadatid dawooyinka aan u baahnayn qoraal dhakhtar ee xanuun baabiyaasha ah waxay sababi karaan dhaawac soo gaadha kelyaha. Dawooyinka sida ibuprofen iyo naproxen waxay dhaawici karaan kelyahaaga haddii aad si joogto ah u qaadatid, sida xanuunada waqtiga dheer qaata, madax xanuunka, xanuunada lafaha iyo kuwa isgoysyada.